dagaalo muddo kooban socday ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay dhex mareen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay iyo sidoo kale ururka al-shabaab. tuulooyinka u dhow deegaanka Wabxo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay weerareen deegaanada u dhow deegaanka Wabxo oo muddo badan ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab. waxaana ciidamada u suurta gashay in ay qabsadaan deegaanada u dhow deegaanka Wabxo sida deegaanka Ceel Gorof iyo sidoo kale deegaano kale. xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada hogaaminaya dagaalka iyo saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ay ku hareereysan yihiin deegaanka Wabxo oo uu sheegay in al-shabaab ay miinooyin ku aaseen wadooyinka isla markaana ay maanta qorsheynayaan in ay gudaha u galaan. deegaanada u dhow deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka waxa ay ka weerareen dhowr jiho waxaana badi dadka deganaa ay horey uga barakaceen halkaas iyaga oo ka cabsi qabay in ay waxyeello ka soo gaarto dagaalka u dhaxeeya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka dowladda oo isgarabsanaya iyo sidoo kale al-shabaab oo dhinaca. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.